وقالوا حاجة هذا كهر كاتجي هدي ما أنت معلمة هذه لا تص هاي أتسلى هاي الله لا ما لا إزدجاج محاد عاد محاد وحمر هور ما هدي وكسو عليني محاكين عريتاس محاكين ما أنت معلمة هذه دي ما صفت لو جينا ويلي شيكدي يا ودا قاعد إنا كو خال مارتا والله الله وكبريا يقلحو والله الله وكبريا يقلحو نرفيغا وكعيسى ماشا وريسا وكنسك أنا قاعد اسكو خادين إلا هذا معلمة هذه مقعس محاول قلقلة مايا معلم هذه النبي ذا ودا وبد وفرت أنا خلط هوري أقلي مات أنا الدولة مي عجقلين سيد ما فهمتي تي في على ذا تي في جا كاو هذه إنه هذا اللي يقفكته عرفتها مش واحد كلمة دمع السنتين هذه ما فهمتي وحرب أنا نوع عديسو قفك حمر يسكله صوبت تاي وحا مهم إن سؤال عشان جواب الله هلو هذه شو ما يوتا مس صالحة يوتا فهم سيبه محكمة ما صارنا استجنا أنا خلط قلنا رتا اللي حرو إن سؤال بالله عليك هذه معناها الدولة إنها قدرت ما وعدت وقال كان محربة أنا هاد إيش ميا وقال كان كبح على وقال كان مدة سوريتي مزدجناي أنا خلط قلنا رتا اللي حرو إن سؤال بالله عليك أنا رر إلها جوجا أهي نم مسكينة أهي عدة دب مرمان صاحبها يختلين وكبريها يختلين ayarta sidee baad u aragtaa go'aanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku xirtay qaar ka mid ah dhalinyaradii caanka ka ahaa barta TikTok kuwaas oo qaarkood lagu eedeeyay kicin bulsho iyo si la mid ah kuwa ku dhaqmay anshax darro sideed u aragtaa go'aanka dawladda gaar ahaan taliska booliiska qaybta gobolka Banaadir runtii go'aanka ka soo baxay dawladda aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkooda arrimaha diinta iyo uqaafta Sheekh Mukhtaar Rowo aw Mansuur oo soo wakiishtay Tali Mahdi runtii Tali Mahdi howl weyn noo qabatay waa kaaga mahadcelinayaa shakhsiyan aayarta ahaan aan social media ku dhex jiraan ahay nin TikToker ahay runtii arintani dawladda waa ugu mahadcelinayaa wax weyn ee dawladda noo qabatay aan isleeyahay sababtoo ah maanta social media waxaa arkay qof oo la aqooni oo madaxweyne Xasan Sheekh afka la galaayo misna caanayo wixii aad tirada ka batay ebel dibadda aad jirtay gadaalii dambe waxaa bilaabatay dad dalka joogaan oo dawladda afka la galayaan magaca dawladnimada haday garan lahayn waxaas masuubil lahaynin kow arinta kale isqaabinta iyo social media dumarka iyo ragga isku qaabinayaan in dawladda arintaasi ay go'aano ka soo saarto aad iyo aad ayagan ugu mahadcelinayaan dawladda si wada dhanyihiin iyo hay'adana sugidda taliyahooda Muxudiin Warbac runtii waxaan leeyahay hore u socda howl weyn oo maanta bulshada anfacayso aanoo qabateen ilaahay ajir ha idinka siiyo saaxiibadaada markay macallimahadii magaciisa maqlaan maxay dareemaan runtii macallimahadii waa ninka cubgili waay dadka social media oo u diiday xornimada nooc kale inay adeegsadaan معلم مهدي ونن usoo jeestay in social media dhan laga waayo dad dawladda iyo macal anshax xumada ku suubinayo cub la kala cuboo geliyay intaani in ka badan waa rajeynaa in dadka dibadaha joogaan hadda oo isku dayo macallim mahdi inuu nolosha ku soo qabto dibadda anaga waxaan leenahay safiiraa leenahay waxaan leenahay sirdoona leenahay hawshaas haddii loo adeegsado in dadkaasi la soo qabto waa ka sugaynaa Tali Mahdi marka dareenka saaxiibadaada ma noo cabiri kartaa mararka qaarkood markay macallim Mahdi maqlaan waxa laga yaabaa qaarkood saaxiibadaada inay ku jiraan kuwa muuqaal anshax darro ah mararka qaar bartooda Facebook-ga ama bartooda TikTok-ga ku baahin jiray markay maqlaan macallim Mahdi dareen ahaan sidee noqdaan wallaahi ayaa dhexdaas waxa dhacday guri aan ku jiray oo video adiga oo lagu suubinay mid kamid ah wuxuu dhahay haye macallim Mahdi fakataha laka la iridiya la xirtay wala kala dhuuntay daaqadi dabaqo marka guri daaqadi la fiiri banaanka marka ciidamo booliis oo meesha marayaan oo ahay marka anaga waxa u maleynaa macallim Mahdi asxaabtiis inay soo socoto video aan maalintaas go'aanka gaarbo ma ku jiro ana video ma duwa laakiin ayaga duwanayeen macallim Mahdi horta markay maqlaan dadka social media rutii شخصيا آيرت آن بمانت هدي الله هي مع المهدي أنا واحد قلب سنين صانخنا إلهي وأوجيهاي أنا وأس أوجيهاي أرتدت كان سوشيال كجران آدي وعبصدان مع المهدي
beryahan dambo wuxuu suubiyey in meesha oo qabiil oo ka saaray kow inuu ka dhigay qabiil kale tacaarufo maanta dad badan oo qabiil ku faanaya oo cubgili warta arrintaas waxa waaye arrin diiniyan iyo dowladnimadaba iyo bulshadeynta Soomaaliyeed ay ku duceeyeen dowladda inay hawshaas howlweyn ka dhigtay talimaadi arrintaas aad ugu mahadcelinaa maanta haddii qabiil lagu faani lahaa dadka xiran aa la soo deey lahaa maanta haddii qabiil lagu faani lahaa dadkan oo social media ka bootay jire banaanka la soo dhigi lahaa qabiil ma jiro ilaahayna raali ma ka aha qabiil in lagu faano ha lagu dhaqmo yiraah isku ogaada la tacaarufo dowladdan maanta aayadaas maanta banaanka soo dhigtay inay shaqeynayso dowladda macnaheedu waa isku xirnaan bulsho ma aha bulshada inay kibirto waa maasan tahay ayarta waxaa jiray muuqaal hadda ka hor kaa tagay macluumaadii haddii la tuso maanta aad ku muteysan karto in lagu xiro ma aaminsan tahay inuu jiro macluumaadii muuqaal waxaa jira hadda ka hor kaa tagay haddii maanta macluumaadii la tuso hay aad is leedahay aleele mala isdeji maxaa dhacday maxaa dhacay wax mar hor ama haddii uu soo celinay maxaa keenay arrintaas maxaa keenay maanta macluumaadii haddii loo maya sababta lagu geenaa maxay tahay macnaa shakhshantaa labaad may ugu naqataade maya muuqaalkaas may dhan ma soo geli kartee may ma soo geli karto maya ma soo geli karto muuqaalkaas qof ana waraysi ay wacad mugtaade inaa wax horay oo macnaha hadda macluumaadii aad soo xasuusid ma sabab u noqonay yay tahay tali macluumaadii ma inta horta inuu kula socdo muuqaalkan soo adiga ma anigu waay maxaa diiday in xabsiga lagu dhigo waxaan wax mar hore ahay amarkaan ma soo bixin ma soo bixin amarkaan ha soo baxa masiyuusan soo bixin soo ma ahayn fal anshax darra ma qirsan tahay fal anshax darra hadooya amarkaasi ma soo bixin adiga macnaha dowladda inaad ugu dirtid ma ugu cadtay muuqaalkan waxaan rabaa inaad ii sheegto maya muuqaalkan ka baxay muuqaalkan waa muddaa soo wareegatay muuqaalkan koobka maamul goboleedku ahay xamaasadan i qaaday soo muuqaal anshax darra maaha waayahay muhiimadda waayahay maxaa diidaya in lagu xiro marka aniga wax mar hore ayaan ku dhahay talimaadi asaa digniin iga siiyey hadda maa soo cusbeenaysiinaysa goorma uu digniinta ku siiyey digniintu waxay ahayd in damba falkaas camal aan garoonka suubinin xitaa wuxuu dhahay inaan garoonka dhex geli karin taasi makaayeelaha naa talimaadi taasoo i aqbalay laakiin ninkiska ay cafiyaan dhahay xilligaasna warkaan dowladda ma soo saarin afyeenka ciidanka booliiska sadiiq arrintaasi social media ma soo dhigin adiga marka ii sheekshantahay arrintan maarabtiin inaad dadka tusisiin maya waxaan ka hadleyno waa dadka anshax darrada social mediaha ku joogay qaarkood weliba hadda xiran marka in adiga oo muuqaalkan lagaa haayo waxa diidaya in lagu xiro oo aad dafirayso waxa diidaya kuu sheegaa ayaan marnaba la qaadan waxa diidaya kuu sheegaa ilaahay quraankiisa wuxuu ku dhahay tuubu ila allahi toobatan nasuuxan toobada waa furanta aniga khalad hore ah u galay maanta aniga dowladda migu cagjugleenaysid ma fahanti tv aa leedahay tv-gaaga ku adkaaw maanta haddaad leedahay dowladdan ku tusina waa niikisay dowladda naftirkooda xogta oo dadka social media way ogyihiin ma isdejinayo ma isdejinayo ma isdejinayo macnaa anoo khalad gelin aragtaa in lii xiro bilaa caleyk si degan aa iga jawaabto ayaa rajeynaya oo aad isdejisid waxaan ka rabaa ayarta adoo mahadsan xamar yaa iyo caafiga hadda waa naga daadisino su-aasha haddii aan ku weydiiyo xamar yaa iska leh xamar yaa iska leh haddana sheekadaas ma ay keentay xamar yaa iska leh soomaali weynaa iska leh xamar soomaali weynaa iska leh xamar ciddaan maanti oo dhahayan anagaa iska leh lama xeri lahaynin ma fahanti aan waxaan kuu sheegay xamar ummadda soomaaliyeed dhan ay ka wada dhexaysaa ninka soomaalinimo sheegto way ka dhexaysaa xamar ma fahanti xamar maanta haddii micnaa cid lahaanleyd dad badanaa u xiran waa ogtaa adabo hadda makuu titirinaa saas maaragtaa waxaad diidaysaa inaad carabka ku dhufato cidda la xamar waa la ogyaa waa la wada yaqaanaa yaa iskale marka maya xamar soomaaliya iskale yay tahay cidda xamar iskale ninka soomaali u dhashaa iskale adiga inuu hadal iga fogto aa rabtaa mis wax kale ma damacsantid adig ma fahanti waxaan rabaa inaad noo caddayso qofka xamar iskale sababtay tahay waxaa muhiim ah in su-aashan jawaab loo helo adiga shuuto maa igu tahay mise saalaxaa igu tahay ifahamsiibo
maxkamad maa saaranaan kuma weydiinayno shuuto iyo saalax midna ma taagno hadda waxay taagan tahay inuu su-aal ku weydiiyo saasay tahay shuuto iyo saalax dadka dembiyadooda way kasoo saaraan marka aad waxaa iga dhigaysaa xamar inay cid iska leedahay aad iga dhaadhici rabtaa macnaha anig taas ma iga dhaadhicinaysid saaxiib ma fahantay xamar marka Soomaali weyn xamar adaa iska leh anaa iska leh Soomaali dhan aa leh Soomaali weyn aa iska leh saa sheegtay maxay ku xiriireen marka saaxiibadaadii oo ku murmayay ama ku dooday inay xamar leeyihiin aana qabiil ay ku xiriireen xamar anaga iska leh aana qabiil ay ku faanayeen ay ku xiriireen maanta ani waa dhigi karaa xamar wiligeygaa joogi jira xamar anaa iska lehee waa cawaadi karaa ya xamar aniga bee kuma sheegaayo abkoogeyga ninka u horeey xamar qeybi abkoogeyga ahay Jamaal Jibiya la dhihi jiray ma fahantay anoo dhahay ma aragtay xamar anagaa iska leh abkoogeyga dhul qeybinaay dhul hebelo ceel gaabta dhan abkoogeyga iska leh ma fahantay marka aniga ceel gaabta ku koobantaa marka maya ceel gaabta meesha oo asal oo laga bilaabo waayo gobolka Banaadir maanta hadii la dhaho dadaa Madiina ku boodaay dadaa Boonde Hodon ku boodaay dadaa Dharkeele ku boodaay dadaa waxay ku boodayaan wadajir dadaa waxay ku boodayaan adi degmooyinkan kala duwan ma jirin duure aa jireen xiligaas aan ku sheegoy marka waraysigeena waa soo gunaanay ani dhiigay ku kicin bilaa calay saaxiibadaada hadda xiran iyo kuwa si guud ee barta TikTok isticmaala ee mararka qaarkood waxyaabo aan maangalka ahayn soo gudbinayo maxaa fariin aad u diri lahayd runtii dadkaas waxaa leeyahay kow ilaahay ka cabsada labo dowladnimada hala fiiriyo sababtoo ah kow social media waxa loo furto wax kale maaha laba option waa inay hunguri ku wado iyo waa in soo saaraysid okay labada option aad adeegsanaysid isku day wixii ilaahay raali ka aheenin inaad iska ilaaliso kow midda kale dowladnimada in la fiiriyo waajib waayo adduunka dowladaa ka wada dhisan dowladee fara badanaa ka wada dhisan dowladda xeeray ku dhaqantaa xeerka ugu fiican anagaa maanta ku dhaqano 100% islaamaan nahay kun xasan sheekh maanta nugu sare madaxweyne nugu yahay kun cunuga hadda la dhali doono ugu hooseeyo maanta futuq hooyada uurkeeda kusoo bixi doono labo inaan fiirino dowladda ixtiraam gaar inaan u yeelano dowladda waa lagama maarmaan maanta amnigan aan ku noolnahay amnigan aan ku joogno ilaahay ka sokow dowladnimada waay waa khirsantaa moo adiga si wacan intaasaa kaaray bis marka in ayagana fiiriyaan dowladnimada alla ka cabsiga ay fiiriyaan waxyaalaha qaar ha iska duduwaano madadaali waa badan yahay wareys waa badan yahay adiga shaksi now maanta taliimahaada wax ka sheegbo ma ka sheegaysa dantaadaa taqaanaa hadda aniga waa ay waxyeeleysay biyaha igu shubtay maya aniga been kuma sheegaayo qalkiina waa hayaa soo maya wili sheekadii aa wadaa gacan inaan kuu qaado maarata walaalow waa ku baryaa iga leexo walaalow waa ku baryaa iga leexo neerfeegaa igu kicisay meeshaan wareysaa igu keensatay ani aad gacan yaa isku qaadin ilaa hadda macallimahadi magaciis maxaa uga qalqalaysa maya macallimahadi nabidaa wada mahdi maanta uuna fiirsanaa hadduu asigana fiirsano istaafiyadiisaana fiirsanayaan video in loo geeyo bas ay ugu filan ayat wiil sidii moo wada in lidho maarta adi macna xiritaanka maaraal ku tahay waxa ugu weyn ka baqaysa maxay tahay wax ugu weyn ku baxayo waxay tahay dad qabiil ku faanaa ilaa hadda xabsi ku jiro ma fahanti aan reer ilaaha jooga ahay nin maskiina ahay cideeda dhib ma rabaan saaxiib ha khatalin waa ku baryahay khatalin ما ستا وريسيغان انتاسا كسو كوبينا هذا مدن ايرتا ادا uga mahad celinayna wareysigan xiisaha badnaa waxaad ka daawanayseen bartayda Facebook-ga Isheella iyo bartayda YouTube-ka wareysigan la kan xiga intaynu ku kulmi doono nabadgelyo hadii caafi qalbi ifur qalbiga ku furaya macluumaadina kugu ma dacweynaa wabillahi